way, here, quick. Come on, you four. Aggressive, you four. Go on, you four. Stay up, stay up, stay up. Switches, all speed, quick. It's good. Well worked. Here we go, good. السلام عليكم دمان صاحبada ku xiran page-ka Manchester United Somali Fans iyo bartiisa YouTube-ka Man United Somali ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono macalinka cusub ee dhawaan ku soo beeray shaqaalaha tababarka uu hogaamiyo Ole Gunnar Solskjaer kaasoo lagu magacaabo Eric Ramsey barnaamijka waxa idin soo jeedin doona anigoo ah Cabdirasaaq Abdulqaadir Anam iyo Cabdiraxmaan Abdulqaadir Mankis ku soo dhawaada halkan waa Man United Somali kooxda Manchester United ayaa magacawday shaqaale cusub oo tababarka macallimiinta ah. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa shaaca ka qaaday in Eric Ramsey uu ku soo biiray maamulka macallimiinta kooxda koowaad ee Manchester United. Tababarahan da'da yar ayaa la shaqeyn doona ciyaartoyda kooxda si shakhsi ah. Sidoo kale wuxuu la wareegi doonaa maamulida tababarka kooxda si guud ahaaneed maadaama uu ku wanaagsan yahay si looga saaro kubadda banaanka. Sidoo kale wuxuu ciyaaryahanada bari doonaa cadaadiska dhanka raacashada ah. Waxa kale uu kooxda ku soo kordhin doonaa hanaanka loo difaaco kubadda jooga sare ee loo yaqaan set pieces-ka sida bilizyoonada koornooyinka iyo kubadaha geeska laga keeno taasoo ah wax ay Man United ku dhibaneed muddooyinkii u dambeeyay. Ole Gunnar Solskjaer ayaa isku dayi doona inuu tijaabiyo qaab ciyaareedkiisa kulamada isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub sida ay sheegayaan wararka isagoona kaashan doona Eric Ramsey. Tababaraha reer Norway ayaa ku dhiganaa taageerayaashiisa qaab ciyaareedka 4-2-3-1 oo qaabka Diamond-ka kaasoo uu ciyaaray labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay haba ugu badnaaday xilli ciyaareedkii hore inkastoo uu markii hore ciyaaray nidaamka 4-3-3 markii ugu horeysay uu kooxda qabtay laakiin sida ay sheegayaan warar cusub Solskjaer wuxuu hadda raadin doonaa inuu dib ugu laabto shaxda 4-3-3 oo uu ku riyaaqay guulaha saddexdiisii bilood ee ugu horeysay ee uu maamulayay markii uu ku meelgaarka ahaa xilli warkan uu ku soo aadayo imaatinka macalinka cusub ee Eric Ramsey. Wararka ayaa intaas ku daraya in Solskjaer uu u sheegay ciyaartoydiisa inuu doonayo inuu hirgeliyo qaab ciyaareed weerar ah oo ku dhisan 4-3-3 xilli ciyaareedka cusub taasoo soo afjari karta dhamaadka khadkii dhexe ee lamaanaha caanka ahaa ee Freddie iyo Scott McTominay. Perfect. So getting on it, making options, passing lines. So, for example, if you take the wide slot, grey there, sorry, blue if you could go in the middle as a defender. waa kuma Eric Ramsey magaciisa saddexan waa Eric Thomas Ramsey wuxuu ku dhashay magaalada Dundee ee Scotland wuxuu u dhashay isla wadanka Scottishka ee Scotland. Ramsey wuxuu shaqadiisa ka bilaabay magaalada Shrewsbury Town sanadkii 2017 isagoo ahaa madaxa tababarka ee barnaamijka dhalinyarada ee Shrewsbury. Kadib waxaa loo dalaacsiiyay maareeyaha akademiga ka hor inta uusan sii wadin inuu la shaqeeyo kooxda koowaad isagoo mar noqday caawiyaha tababaraha kooxda. Xagaagii 2019 wuxuu ku biiray Chelsea si uu ula shaqeeyo kooxda 23 jirida kooxdaas. Sidaas darteed macalinka kooxda Man United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ammaan kala dul dhacay macalinka 27 sano jirka ah maadaama uu kooxda ka caawin doono qaab ciyaareed cusub oo kooxda doonaysa in ay ku ciyaarto xagaaga cusub. Waxa ayna si wanaagsan isku yaqaanaan kaaliyaha saddexaad ee tababara Solskjaer ninka lagu magacaabo Kieran McNeil. Ramsey iyo Kieran McGinn ayaa ahaayeen dad isbarasho ku soo qaatay waqtigoodii Loughborough. Isagoo arintaas ka hadlaya waxa uu yiri waxaan nasiib u helnay inaan ku qancino Eric Ramsey inuu yimaado kuna biiro kooxda ugu fiican adduunka iyo dalkaba. Solskjaer ayaa u sheegay website-ka United isagoona sii wata hadalkiisa waxa uu yiri waa tababare aad loo qiimeeyo oo la shaqeyn doona kooxda isla markaana mas'uul ka noqon doona qaab ka mid ah qaab ciyaareedka kooxda. Waan ku faraxsanahay isagu waa dhalinyaro kaasoo leh fikrado cusub. Tababare Kieran oo ka mid ah shaqaalaha tababarka ee kooxda koowaad si fiican ayaan u garanayaa Eric sidaas darteed aad ayaan ugu faraxsanahay taas. Imaatinka Ramsey waa in uu aragti ahaan United ka dhigaa mid aad u karti badan marka ay timaado difaacidda cadaadiska ka imaanaya kooxda ka soo horjeeda iyo gool dhalinta kooxda halka sidoo kale ay u badan tahay inuu sare u qaadi doono awoodda difaac ahaaneed taasoo ugu dambeyn weerarka kooxda ka dhigi karta mid aad u xoogan. Haddii uu sidaasi sameeyo Eric waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa farqiga goolasha ee kooxda kadibna farqigii dhibcaha ay soo yareeyaan taasoo ka dhigi karta koox hami leh oo ku guuleysan karta horyaalka Premier League midaasi oo kooxda u noqon doonta mid
muhiim ah dhamaadka horyaalka ee bisha May. waxaan u rajeynaynaa in uu ku soo kordhiyo kooxda waxyaabaha warbixinta ku xusan uuna noqdo mid ka qayb ka qaata guulaha mustaqbalka dhow ee kooxda. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. mar walba dhiirigelin ayay inoo tahay daawashadiina. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channelkan, fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad tahay taageero kooxda Man United inaad subscribe noo saartaan. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.